tilmaamay calayhi salaatu wasalaam tilmaamuu ka bixiyey uu laba dhinac buu leeyahay dhinac midig iyo dhinac bidix buu leeyahay sida miisaanka adduunyadu laba dhinac uu leeyahay dhaxdana wuxuu ku leeyahay carab lisaan sida miisaanka adduunyadu leeyahay kolkaa buu nabigu tilmaamay weynidiisa inuu aad iyo aad u weyn yahay uu aad iyo aad u ballaaran yahay uu sheegay labada dhinacba inay iman doonaan dad sayi'aadkii iyo xasanaadkiiba buuxiyey kolkaa ilaahayna wuxuu tilmaamay qofka ay xasanaadkiisu ay ka bataan sayi'aadkiisa inuu ahlujanno yahay walidaalika miisaanku kan la saaro waxyaalaha qofka maalinta qiyaamaha ka cabsiinaya ka mid tahay cabsidaana waxay noo tilmaamaya xadiidkii caaishaa tiri maalin iyadoo fadhida naartii bay xasuusatay ilaahay uu kaga warramay kitaabkiisa way oyday kolkaa buu rasuulku yidhi maxaa kaa ooyinaya caaisha kolkaa bay ti rasuul allow naartan xasuustoo waan ooyey bay tiri way su'aal weydiisay kolkaa ti rasuul allow maalinta qiyaamaha dadkiinna maad xasuusan doontiin ehelkiinna qaraabadiinna maad xasuusan doontiin sababtay u tidhi leanna qur-aankay akhrinaysaa waxay arkaysaa maalintaasi maalin cabsi badan inay tahay maalin naxdin badan inay tahay maalin gebigeegu la kala ordayo dadkan maanta isku soo ordaya inay kala ordi doonaan ciddii adduunyada ugu naxariis badnayd waa hooyadaa inay ka ordi doonto maalinta qiyaamaha ood adna ka ordi doonto oo qofku xaaskiisa uu ka ordi doono ciyaal ku dhalay uu ka ordi doono walaalihii uu ka ordi doono qaraabadiisa uu ka ordi doono cid uu u joogsanayana jirin kolka maalinta cabsideeda waxaa ka mida walaalayaal ay u weydiisay caaisha arrintaa darteed ma xasuusanaysiin dadkiinna maalinta qiyaamaha kolkaabay caaishaay 3 meelood cidi cid xasuusan mayso qof xasuusan maayo naxdinta darteed ta koobaadii waa xilliga la miisaamiyo miisaankaaga ilaahay uu ku hor keeni lagaa qarin maayo maalinta qiyaamaha xukun ilaahay ma ridayo walaalayaal iskama ridayo may waa lagu dhammaystirayaa hadalkaa kuu furan xitaa hadalka ayaa kuu furan waad doodaysaa bani aadamku madax adeegiisa qiyaamaha uu doodi beenna uu sheegi ka war isagoo arkaya naartii iyo jannadii iyo xaqiiqadii arkaya liannu adduunyadan buu ku soo noolaa beentuu la qabsaday wuxuu rabaa iminka xitaa ilaahay inuu been u sheego kolkaa ilaahay markhaati malaa'ig uu keeni uu iska diidi qofku markhaatiga malaa'igta oran ma yeelayo ilaahay ma oranayo may ilaahay muxuu samayn carabkiisa la qaban xubnihiisa hadli xubnihiisa qofka bani aadamka gacmahaaga lugahaaga indhahaaga jirhkaaga hadlaya camalkaad samaynaysa adduunyada kolka haddeed maxaa hadhay haddeed markhaati maxaa ka dambeeya intaa kolka halkaa miisaanka la joogo qofkuu cabsan doonaa ilaa uu ogaado miisaankiisu ma xasanaadkaa cuslaan mise sayi'aadkaa cuslaan doona meesha labaad uu yidhi xilliga kitaabka la qaybinayo qofka camalkiisa uu sameeyo adduunyada walaalayaal waa la qoraa malaa'igtu way qortaa suxuf bay ku qortaa suxuftaa qofka waa la siin oo qofku camalkuu qabanayay ee la qoray uu arki doonaa faman wajada khayran falyaxmad illaah xayse qudsigii reer bani aadanow innamaa hiya acmaalukum uxsiihaa lakum waa camalkiinni anu waan inii dhigayaa oon inii keydinayaa oon inii ururinaya faman wajada ciddii la kulanta khayran saxiifadiisa wanaag iyo xasanaad iyo khayr falyaxmad illaaha rabbi aw mahadiyo waman wajada hayra daalika ninka waxaan khayr ahaynna xumaan badan saxiifadiisa ka arkow falaa yaluumanna ilaa nafsahu inuu cidna canaaninay naftiisa ha canaanto meesha waa kow meesha labaadi waa suxufta meesha saddexaadi waxa weeyaan xilliga siraadka la dhigo siraadkuna waa dariiq waa jid la mari doono oo jahannam dusheeda la dhigi doono dhammaadkiisa iyo dhinaciisa kalena waa jannadii weeyaan dadku way dul marayaan dabcan nebigu wuxuu ka tilmaam ka bixiyey in dul socodkiisu adag yahay idan socod caadiyo labada lugoodii walaalayaal wax ma tarayaane qofka camalkiisa marinaya halkaa dad baa sida hilaaca u maraya ilgibirsi ku dhaafay
dad baa sida dabaysha ugu degdeg badan ku dhaafay dad baa sida faraska ugu orod badan adduunyada ku dhaafay dad baa iyagoo ordaya maraya dad baa iyagoo lugeynaya maraya dad baa iyagoo guurguuranaya maraya dad baa iyagoo beerka u siqaya maraya kolkaabuu nebigu yidhi waxaad dhici doontaa kalbadaa dhinacyada ka yaallo dadka dafaya oo waxa weeyaan intaa laga ridaya meesha way kalbadahaasi ku dhagayaan ridayaan badan abu nabi sallallahu alayhi wasallam kama gaarayaan dad baana gaaray siraadkana waa meesha cidba ay cid xasuusan buu nabigu calayhi salaatu wasalaam miisaanka wuxuu ka tilmaamay nabigu walaalayaal in camalkaaga xasanaadka sayi'aadka la saaray axaadiithta barkood waxay tilmaamtay in xitaa qofka bani aadamka la miisaamiyo nabigu wuxuu yiri yu'ta yawm al-qiyaamah la keeno doona qiyaamaha nin aad u cayilan nin aad u buuran baa la keeni doonaa miisaanka la saari لا يساوي عند الله جناح بعوضة بات كان ميزانك يالن مايو بمعنى وزن جيسا ميزانك يسموغضا قيمة ملع إيمانك قلبي يسكجر أيو ميزانك قياسا إما ميزاميو إما كميزانك الدنيا هدي له قصاره مو ميزامية هيلي بكاغا لفهاغا ميزانك جيركاغو ميزامية هي أنت waxa weeyaan tahay may nin dhan oo waxa la keenaya qiyaamaha aad u buuran miisaanka la saaraya miisaankaasi waxa kaliya dareemaya oo miisaamayo waa iimaanka qalbiga ku jiro miisaamaya bas ninka ay mal iimaan walidaalika janaaha ba'uudan malaykana waxa uu tilmaamay nabigu aydan calayhi salaatu wasalaam waxyaalaha miisaanka cuslay walaalayaal in lagu dadaalo waxa kamid ah dhikriga badan tasbiix iyo tahliisha سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ولا بكل من خفيفة عرب خفيف إلهينا جعليه ميزان كان كعرس وكاب الرسول صلى الله عليه وسلم تلمامي سبحان الله يا الحمد لله يا لا إله إلا الله يا الله أكبر إن يتهي وحيا لها ميزان كعرسمين إيوه قف وكردنتي علمه سي وناكسنا بكردنتي qof badarkaysa waxa ka dhimanaya wiil uu dhalay gabadh uu dhalay oo wanaagsan oo toosan ilmuhu kolku wanaagsan yahayna naftu xoog buu jeceshahay laana ilmaha ku kadeeda ilmaha dhibta badan leh ilmaha karaahida badan leh marmar naftu waxay tiraadaaba kan ilaahay muu ka qaada dhibtiisi baa badatay kan Allah muu ka qaaday koran dimashadiisa inta badan laga naxo hadii laga naxana waa in inkastoo waalidku ilmuhu xitaa haduu xun yahay uu dimashadiisa ka naxo waalidku waa cajiib haddana walaalayaal naftu waxay xoog u jeceshahay ilmuhu kolkuu toosnaado ilmo baar uu yahay ilmo dabeecad fiican uu yahay ilmo camalkiisu wanaagsan yahay naftu ilmanimadii waxa u dheer wanaaggan uu sameeyay xoog u sii jeclaata ilmihii weynaaday oo qurux badnaaday gabadhiyo fiicnaatay oo toosnaatay oo nuurka ka baxayad ka yaabaysay ayuunbu mawdkii u yimido way dhimatay aabaheed iyo hooyadeed dhibintee lag baa gaadhaysay iyo naxdin iyo murugeynta lag haday ku sabraan sabirka ay ugu sabrayaan miisaankooda culays buu ka dhigaa ilaahay baa yidhi inma yuwaffa as-saabiruna ajrahum bighayri hisaab dadka saabiriinta ee dhibta adduunyada u dul qaadanaya qiyaamaha waxa laga abaal mariyaa sabirkooda intee laga abaal mariyaa ma xasanadii 10 baa looga dhigayaa ma xasanadii sabriga ahayd 700 baa laga dhigayaa ma kun baa laga dhigayaa ilaahay baa yidhi bighayri hisaab lama xisaabin karayo xisaabteeda sabrka dulqaadka dhibta loo dul qaadanay noocay doonto ba noqoto qiyaasteeda Allah baa qiyaasi karaya waxyaalaha miisaanka cuslay waxa kamid ah dabiicadda wanaagsan nabi sallallahu alayhi wasallam athqalu shay'in fi mizan almu'min husn khuluqihi miisaanka mu'minka waxa ugu culus ee la saaro ee loo miisaamo waa dabiicadda wanaagsan qofku dabiicad wanaagsan yahay waa nicmada ilaahay dabiicadda wanaagsan khalqiga ku jeclaada khaliquna ku jeclaanaya dabiicadda wanaagsan waxay noqotaa adigoo acmaashi yar amalkaagu u yar yahay faraa'idii batalan khayraadka kale ay yar yihiin laakiin dabacaagu wanaagsan yahay darteed in miisaankaagu uu ku dhaafo uu ka cuslaado dad adduunyada cibaado badnaa laakiin dabiicadooda ayna fiicnayn ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن مؤمنك لا يبلغ وحوك قادا درجة الصائم القائم درجة قاديو نك الصوم بدنها إبقى الصومكي
هبينكي انت أبدا تكذا وحو كقارا درجة اللي كقارا صون كبدن هي الصلاة بدن هبينكي اللي كقارا وحو كقارا مؤمنكو بحسن خلقه وكقارا ده بيعدي سوون أكثر أيوه كقارا تكلم ولا ريال وحيالها ميزانك عسلية عرضا للقاء إله الدرت للقاء قفبا كعاي قفبا واحد قدي قفبا وحويان خلط قصميني زوج كاغا زوجة دادا ورالكا قريب كاغا جار كاغا صاحب كاغا عندي كودو وكل شقية وكل شقية عردي أتكريسي إن كسي ديسو أو كل فتو أو كأرجوسته كل كان لقضاء وحوت المام النبي وحل اللقاء أو عند الله كأجر بدن مجربوري عرر اللقاء وحل مدأ إلا نقفكوا عرض ويصاب بحيسا كلكوا يسكوا عليه واردباتوية علمتيدو جهاد بو باهن tahay kolkuu isku celiyo ilaahay dartii isagoo karaya hada fulinimo ma ahna eega qof baa koranay waan ku saabaxay kuma saabaxay waa fulay haduu karayo inuu qoorta ka goyn lahaa laakiin waa fulay ka ajar male kala sheegay waa ka waxa weeyaan awood uu karaya awood ahaan inuu cadadiisa meeshu doona gaarsiiyo laakiin ilaahay dartii wajiga ilaahay ayuu cadadi u liqay uu qofkiina iska daayay kaasi liqitaanka uu cadada liqay wax ka ajar badan buu Nabi sallallahu alayhi wasallam aan iska ilaalino waxyaalaha miisaanka khafiifiya ama dhibaateeya waxa kamid walaalayaal kabaa'irta xasanaadka baabiisa waxa kamid dulmiga waxa kamid dadku la adiyadeeyo arab lagu adiyadeeyo gacan lagu adiyadeeyo waxa kamid walaalayaal xuquuqul waalideynka kamid ah oo waxa weeyaan qofka xasanaadkiisa tirtirtaa oo xasanaadkiisa baabiisa waxa kamid xasadka kamid nicmad ilaahay adoon siiyay inaad u quuri weydo oo ka gubato oo xaasid noqoto xasanaadkaaga baabiinaysa waa in la iska ilaaliyo waxa amalka gabigiisa baabiinayo sifir ka dhigay xasanaadkaaga oo dhan waa gaalnimada weeyaan inuu qofku ku dhaco wax gaalnimo ah oo diinta ka saara mujtamaceena iyo mujtamacyada barkood waxa kamida diin cayga ilaah cayga kamida rabbiga la caayo malaa'ikta la caayo salaada la caayo anbiyada la caayo waxaas waa kufrun akbar waa gaalnimo weyn oo qofku diintu ka baxa hadii uu ku dhinta caynka wuxuu amal qabanayo dhan xasanaad oo tirtiray wax u haray ma jiro xabad xasanaad وكذلك وإنه اسك إلاليه أعماش بركيد عمل كبابيسة وحكمنا شرب الخمر إنه قفك وحمانك الدورية وعبو مانك الدورية خمري هالنقضة كنين هالنقضة حشيشة هالنقطة وحي دونت هالنقطة وحمانك يكسك بني آدمك بدله أي قفك كلا جروايو مالو تشوغو يعيدو هور تشوغو يوحو كهضي ونكلا جروايو وإنه اسك إلاليه وإنه النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمرة قفك خمري عبا لا تقبل له صلاة 40 يوما صلاة لما أقبله أفرت المالمون وحكمدا إنه قفك أتغو فالية كتاب فرع إنه أتغو سدوه أغادو دبت هايسطة أما وحكا لمي نيك أتغو رسولك قف فالية بس مرمي أو دغيستو هذا الكيسي مقادا أو دغيستو لا تقبل له لغا أقبل مايو صلاة 40 يوما صلاة أفرت المالمون لغا أقبل مايو ونتكنا يا هذا وإنه اسك إلاليه صلاة ضيعادودا waxa ugu khatarsanna salaada casr waqtigeega inuu dhaafiyo salaada casr waxay taagan tahay eedaanka casr ila eedaanka maghribka ay taagan tahay waqtigeegu u dheer yahay jamaca kuma xidna farqi baa u dhaxeeya salaada jamaca iyo salaada waqtigeega salaada waqtigeegu u dheer yahay jamcu haduu ku dhaafo waqtigu inuu ku dhaafin casrka waqtigiisu waa eedaanka casr ila eedaanka maghrib inta gudaheega waa inaad casrka tukato isagoo soo jeeda oo xasuusan salaadii waqtigeega haduu qofku iska daayo wuxuu rasuulku liman taraka salaat al-asr faqad habita amaluhu qofka salaada casr uu kas uga taga isagoo soo jeedo oo xasuusan amalkiisu uu baaba'ay buu nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kalena fakaannama watira ahla wa maalahu wuxuu lamid yahay musiibo qofku dhacday nin xoolihiisi iyo ahligiisi maalin kaliya ilaahay baabiyay musiibada ku dhacday waxa ka daran walaalayaal ninka salaada casr ka tagay وكسي عنبه وحاسنا وانتي ميزانك وحياليسي وإناد إسك إلى لسد وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه